ilaalinta xasaanadda xildhibaanada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane ilaali marweyn xildhibaanada sharafta leh waxa aan ilaalin doonaa xasaanadda dhammaan xubnaha golaha mana ogolaan doono in lagu xadgudbo karaamada xildhibaanada golaha shacabka dhinac kasta sida uu qabo qodobka 7aad faqradiisa koowaad ee dastuurka kumeel gaarka ah waxaan ballan qaaday inaan ilaalin doono karaamadiina codkiina aragtidiina iyo soo jeedintiina si waafaqsan dastuurka kumeel gaarka ee dalka iyo xeerhoosaadka golaha shacabka ilaalinta xasaanadda xildhibaanada golaha shacbiga baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudanayaal iyo marweyn waxa aan ilaalin doonaa xasaanadda dhammaan xubnaha golaha shacbiga mana ogolaan doono in lagu xadgudbo karaamada xildhibaanada golaha shacbiga dhinac kasta ha ahaatee sida uu qabo qodobka 7aad faqradiisa koowaad ee dastuurka kumeel gaarka ah waxa aan ballan qaadayaa in aan ilaalin doono karaamadiina codkiina aragtidiina iyo soo jeedintiina si waafaqsan dastuurka kumeel gaarka ee heerhoosaadka daryeelka caafimaadka xildhibaanada iyo qoysaskooda mudanayaal marweyn xildhibaanada sharafta leh waxaan ka shaqayn doonaa sidii xildhibaanada golaha shacabka ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad iyaga iyo qoysaskooda anigoo ku dadaali doono inay xildhibaanadu helaan daryeel caafimaad oo joogto ah iyadoo kuwa hadda xanuunsanna ay heli doonaan gurmad caafimaad oo degdeg ah dhinaca kale waxa aan ballan qaaday in xubnaha golaha shacabka ay helaan markasta xuquuqdooda gaarka ah sida mushaaraadkooda iyo waxyaabaha kale oo ay xaq u leeyihiin daryeelka caafimaadka xildhibaanada iyo qoysaskooda mudanayaal iyo marweyn mudanayaasha sharafta leh waxa aan ka shaqayn doonaa sidii xildhibaanada golaha shacabka ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad oo dhammaystiran iyaga iyo qoysaskoodaba aniga oo ku dadaali doona in xildhibaanada hadda ay haysato caafimaad darradana u raadin doona gargaar degdeg ah dhinac kale waxaan ballan qaadayaa in xubnaha golaha shacbiga ay helaan mar kasta xuquuqdooda gaarka ah sida mushaarka iyo waxyaabaha kale ee xaq u leeyihiin